dadkan waalidu taabtay ee ka wiiqan lixaadka een wax sheegan karaynin wuxuu waalid awoodo baahidoodu ka weyne waa xilkii wadareedee hortayaa ka wakiil ah. bismillaahi alxamdulilaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa fariin ku socota guud ahaan dadweynaha gaar ahaan saddexda musharax ee u taagan xilka madaxweynenimada Somaliland inay qabtaan. fariintan soo socotaa waa fariin jirtay muddo 17 sannadood ka badan. waa fariin hortagtay qaar badan oo mas'uuliyiinta bulshada ka mid ah. waa fariin weyday cid ku qaabisha cod iyo ficil wada socda marka laga reebo in yar oo markii dambe daal dartii la galaalaatay dhacday. fariintani waxa ay maanta marti u tahay saddexda musharax ee xilka madaxweynenimada u socda inay qabtaan ee kala ah Faysal Cali Waraabe, Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi. ujeedaduna waxa weeye in dadka miyirkii maskaxdooda waayay, kuwa goblanka ah ee gaboobay saboolkana ah iyo wixii la mid ahba la siiyo daryeelka koowaad ee qaranka. bismillaahi raxmaani raxiim. qofka maskaxda ka jirani caafimaad ahaan wuu maqan yahay oo xiskii maamuli lahaa ayuu waayay, mana hadlan karo, cid kalena uma hadli karo. tira ahaan wuu maqan yahay oo cidna ma tirsado, cidina ma tirsato. in la ogaado mooyaane isma oga, in la xusuusto mooyaane isma xusuusto. waa marti aan la ogeyn, waa miskiin aan hadlahayn, waa dayacane dulman, waa nafsi ku maqan inta miyirka qabta. dadkan waayuhu haysto ee waxyeeladu gaadhay ee waayay miyirkoodii ee habeenkii wareega ee agteena ka wiile debeed bay wadhanyiine hortayaa ka wakiil ah. awoodda lagu daryeeli karo dadka maskaxda ka jirani waa awoodda bulshada oo keliya, waayo waxyeelada cudurka waalidu wuu ka culus yahay arrin uu xallin karo waalid kelidii ama qoys. dadkan waalidu taabtay ee ka wiiqan lixaadka een wax sheegan karaynin wuxuu waalid awoodo baahidoodu ka weyne waa xilkii wadareedee hortayaa ka wakiil ah. waxaad arkaysaa qof dumar ah oo dariiqa ku silcaysa oo weliba marka ay doonto marada tuuraysa iyadoo suuqa dhexdiisa maraysa. bal qiyaas dhibka intaa la eg, bal malee cidda miciin u noqon karta. qofuu weyne ka qaaday wanaaggii miyirkiisa waa waxyeella adduune caarkan waxyaha qaawan ee jidka walhanaysa markay weyday miciinka hortayaa ka wakiil ah. badanaa inta ruux waalan oo dariiqa meeraysanaya indhahaagu qabanayaan. bal qiyaas intaad aragtay ruux dayacan oo ku dayacan magaalooyinka oo waddada wareegaya isagoo qaawan oo wax astura u baahan. bal malee inta aad indhaha saartay iyagoo baahi darteed la ciirciiraya ama ku daafad ku dhex jira imisaa meel ku xidhan oo ka qaylinaya iyagoo kala weecsan oo wadeeca ku taalo wadaday marayaane aragaygiyo wiilka marka aan wax ku siiyo walbahaartay naftiye
hortayaa ka wakiil ah. waa su'aale warbaahinta bulshadu ma dareensan tahay dadka bulshadooda ka midka ah ee sidaa u dhibaataysan? maxaa loo hagraday in dhibka intaa la eg loo wariyo sida ku habboon lana siiyo waqti ku filan? muxuu warka arrintani u noqon waayey wax loo baahiyo si la mid ah ama ka badan sida loo wariyo muranka siyaasadda iyo waxyaabaha la midka ah ee madhalayska ah? bulshadan wacayaaba malaaway wajaqeene war sidii ummadaydu wax kaluu qorayaaye dadkan aan la waraysan waa inaan wariyaaye hortayaa ka wakiil ah. dhawaaqani maaha dheeldheel iyo maararow, waa sawaano iyo tusaale ku wajahan sidii loo fahmi lahaa xilka bulshada ka saaran daryeelka dadka aan ismaamuli karin. weedhahan tabinaayo waanadan shushubaayo maaha waaliyo heese wacdi baan dhigayaaye qalbigay welwelaaya waxla'aanta dadkaase hortayaa ka wakiil ah. dulucda dooda iyo murtidu maaha magac iyo maaldoon midna, balse waa dareen daacad ah iyo qalbi ka qiiraysan saxariirka dadka ugu jilicsan bulshadeenna. murtidan walhinaayo waa warayda codkaygu waa ilaah wejigii warsan maaya adduune waajibaan fuliyaaye weriyow dadkan liita hortayaa ka wakiil ah. dadka dhimani waa kuwa bulshada ugu liita, waa kuwa ugu baahida badan, waa kuwa ugu itaalka yar. dadkaasi tol iyo taag midna ma leh. hadday dhaxamoonayaan ma sheegan karaan, hadday gaajoonayaan ma sheegan karaan. qaran iyo qabiil midna uma tirsana. in dadka mayirka qaba oo keliya la daryeelaa miyaanay cuqubo iyo dulmi weyn ahayn oo laga gelayo kuwa dadka ugu liita? ma waxa habboon inaynu dheregno iyagoo kuwii inoogu liitay silcayaan, mise waxa fiican inaynu dheregno marka kuwa inoogu liitaa dhergaan? hadduu maanku dheeliya bulshooy waa dhantaal culuse ruuxii dhaqaaqa ma lahaa daadaniya muuqee quruxiyo dhalaal maalintaa way dhambaalan yiin. dhabarkuu ka jabay ruuxiskii dhaawac ka qabaye alla wuu dhammayn karahayaa maanka dheeliyaye dhayaha fayowbaa xigmadoo looga dhigayaa. intaynu guryaha iyo dugsoonka ku jirno iyagana dibaddaa dhaxanta iyo roobku ku haya, iyagoo weliba sida gacanta qaawan dheelkiyo qabowga ka helaa debedda dhegowe dhededaya juubaha malahaa dharay ka qaataane intaan dhagii dajiifnay iyagoo dhaxanta meeraane. intaan huwanahay bustayaasha iyo dharka dugsoon iyaguna waxay huwadaan oo miciin ka dayaan gacmahooda qaawan. waxaad arkaysaa iyaga oo gacmaha ku dhajinaya feedhaha iyo dhuunta si ay dhaxanta uga difaacaan. dhuuntay gacmaha kula jiraan dhaxan daraaddeede suxulladu waxay kaga dhigeen
deega feedhahay dhudhunkay miciin moodayaan dhilay qabow kulaylka iyo dhimbiilaha cadceedu maalintii dushooda ayay ku dhammaadaan dharaartii cadceeduna dushay kaga dhacaysaaye dhimbiilahay ku daran doorida dhamac kalileede dhirta kama hargalayaan kulkee way dhanqaalayeen intaynu barwaaqada cuntada kala doordooranayno ee aynu hadba nooc ka mid ah nafta ku raaxaysiinayno iyaguna gaajo ayay agteenna la dhacdhacayaan dhuuniga laquutiyo anfaca dherima saarane dhura kagama qaataan intay dhere ka doonaane gaajay la dheeldheeliyaano la dhacayaan shaqo ganacsi iyo horumar ma awoodi karaan oo taas way ka dhiman yihiin nimcooyinkii dunidu waxay gacanta ugu jiraan dadka miyirka qaba mase oga sidaas iyagu dhulka kama shaqaystaane taa way ka dhiman yihiine wax dhoofiyo wax soo degaa intaba kama helaan dheefe kuwa nimcada dhaandhaansada dhadimayaani dhawaaqu waa fariin gudbinaysaa dhiilla culus oo jirta waa qaylo tabinaysaa waayaha naxdinta badan ee ku foorara bulshadeenna qaar ka mid ah waa sawir muujinayaa dembiga iyo nabsiga laga gelayo dadka bulshada ugu jilicsan dhawaaqaygu meeshuu yahaan idin dhegaysiine xaajadu dhab weeye dad yahow dhuuxa hadalkayga dhibanahaa codlaawaha ahooy dhada siiliciis waa dhiila culuse haddaan dhegaha loo jeedin dhagar weeyeyna saaranoo ma aha dheeldheele dhiig iyo ninkii uuslahow dhidhi waa halise dhiig iyo ninkii uuslahow dhidhi waa halise waxa aan rajaynayaa fariintani madax iyo mijaba haddii alla idmo inay u ka heli doonto deganuglaan iyo xilkasnimo tii hore ka weyn kana fiican kana mudakarsan oo hirgasha fariintan waxaa idiin soo gudbinayay barnaamijka kasmo iyo kaskaaga haddaba inta aynu barnaamijkan mar kale ku kulmi doono waa aniga oo maxamed geyse ah oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu